السلام عليكم ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel walba oo joogaan waan idin salaamayaa waa saaxiibkeen suldaanka Saransoor oo aan YouTube iyo midna aan ku badnayn laakiin mararka qaar ragga doqoninta markay hadlaan bis hadallada soo dhaxgala inta kale aan soo dhaxgalin marka maanta waxa iga keenay inaan soo dhaxgalo arrintan barnaamijka Jimcaha oo sida aan mooday iyo wax u dhow aan ahayn oo lala yaabay midba ka sii daranay waxa iga sii daraatay ninkii ahaa Saciidani wuxuu xalaytu ku hadlay ma ka filayn asna laakiin waxaan maqli jiray hooyadii libaax dhashay lo'na waa dhalay yaa ninkaasi horta waa nin doqon ah fuusudaan bar ku jiro 6 saac markay gaarto iska dhalaasho kale uu la mid yahay sababtoo ah 4 jeer ayaa waxa lagu qabtay galmudug shirarka dawladda iyo maamul goboleedyada looga arriminaya nin walba caaqil ah ama wax garanaya uu fahmayaa meeshii shir lagu qabtay markay u yartahay $50 million inay ku baxayso shirkaas ka qaybgalkiisa lacagtaas ugu yaraan $50 million ka ah ee ku baxays meesha xagee aadama jeeb qofeeday gashaa may magaaladay ku laabanaysaa ninba magaaladaas wax kaga gadanaya wax kaga cunaya shaxaad kugu bixinaya dadka magaaladaas ay wax tar u tahay qoor iyo ninka la yiraahdo Saciidina laba habar oo isu dhaweena kala dhashay habeen maalintii nasiib u yeeshay ee loo soo magacaabay garowe in lagu qabto shirka dhuusubareeb ku xiga dhayma soo wargelin oo isaga diidad go'aankiisana ma aha waxa diida asaga ma aha waxa diida waa Axmed Madoobe iyo Uhuru iyo Imaaraat labadoodaba markaan hoos aan u sii hadalna waxay noqonayaan ilma Uhuru ay noqonayaan labadoodaba waay wax walba oo la yiraahdo ka soo horjeedaan hadda shirkii uu diiday baydhaba lagu qabtay baydhaba ka faa'iideysatay danahoodu way ka soo guteen way ka soo laabteen madaxweynaha shir kaleenta wuxuu ku qabtay xamar uu ku ballamiyay maamul goboleedyada labadoodii baa diiday weliba si fulinimo ah oo nacasnimo ay u diideen madaxtooyada nagu qabsanaya aan nala xiranaya dhan mas'uul ah oo madaxweyne ah oo madaxweyne maamul goboleed oo la yaqaan tahay xasaanad baad leedahay cid kugu xadgudbayso ku xiraysa male meesha la sugu imaanay waa lagu shiriyaa dadkaad ka mid noqonaysaa ama waa diidi kartaaba awalba wax waa diidi jirta cid ku dili jirta cid ku xiri jirtay ma lahayn laakiin inaa xal hadashid Axmedoobe baa ku dhaamo yiri aniga waa la xiranayaaba baba tagay hadaan lagu qabanayn xalana xal waxa soo istaagay farmaajo wala soo hadlayo daaroodnimo ii soo tuugay waa laga jeexay farmaajo daarood ma yaqaan daarood hadoo yaqaana madaxweyne ku xigeenka Jubbaland in ninka jananka la baxayo canjaaxi kuwaas oo daarood isku yiino wali mareexan isku yiino lafa kale isku siin kuwaas oo soo qalqaalsanayo ama lacag baasiya xataa oo soo goyn lahay Jubbaland farmaajo daarood ma yaqaano hawiye ma yaqaano dir ma yaqaano hooyadii kasiil weyn oo dhan ma yaqaano farmaajo Soomaali oo bas intaas uu yaqaanaa runta marka uu sheegayno way nin walba caalamku nool waa tuug wax waa dhacaa farmaajo aan hadda dhammaan noon siyaama anjale ma ah malaa'ik wax ma dhacay ma ku dhahay laakiin lama hayo meel wax ku dhacay oo cadaan ah ama meel wax dhigtay ilaa ay hadda lama hayo dadka farmaajo markii laga soo tago aaminsan xasan cali khayran ka mid ahaa 3.5 bilyan markii lagu soo dalacay oo COVID-19 kii hore lacag loogu talagalay cunaleeri oo hanti dhowrka qaranka uu daba galay oo lagu soo cadeeyay airportka laga soo qabtay isla markaasaan ka aamin baxay fahamteen marka ninkan marna dhahaya farmaajo waaba ka shakiyo waa shabaab iyo waa kan waa dhahaya xaar baa ka socday horumar uma haya
reer Puntland waa hooyadii dowladnimada aniga hadda waxaad moodaysaan inaan aad u da'yaraad moodaysaan muddo yari 60 sanaan jiraa ma garat waxaan soo taagnaa cabdirashiid caashar maake oo masaajidka 4 rukun inta ku soo dukaday jaaka iyo qamiis isku wato iyo koofi cad oo lugaynaya madaxtooy lugaynaya istaafna uusan la socon oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi soo taagnaa anoo yar u dugsi dhiganaya فهمت السنة نقول سمحيدا أركتي بمصاد علي وحوم قنين تدتك إسكندر درتها عبد الرشيد الله يرحمه الرحمن صباح الجمعة 6 ساعة صباح لما لدلي لا سعان الودلي ننكي دلي مركي إلا سوق هذا حمر لكاني بارلمان كهدل بربريو دلجيرك أكتيسكويا لا لكاني فلنا لقى دوبي واحد سوستا ننكي كدوبي adeerkay gacantii ahay oo gaashaan la boolis ah markaa ninkan filimka duuba muxuu yahay ninkan waxa la yiraahdaa Cabdiqaadir Cali Boolay alla ma aqaan garanay hadda inuu dhinto inuu nool yahay waa dhaxdaas waa xamar intaan laga soo yaacay ugu dambeysay Cabdiqaadir Cali Boolay la dhihi jiray ma fahamtay Cabdirashiid kisa ahaa wuxuu dhalay isla taangigan oo aan garanayno waa daragtay cuntada laga qabanay gacanaha laga qabanay isagana wuxuu badhaamaa badani because Cabdirashiid doqon bah iska ahaadee dubaydaas uu iska fadhiyo iska dhuuqa wuxuu rabo ka dhacaa wuxuu rabo ka cunaa wuxuu rabo ka aqliyaysta aflagaada iyo afsami iyo afxumi iyo haa iyo may labada intaba lagama hayo war ninkan iska daba ordaya ninkan أحمد مدوبة إسك دب أردية مستقبل كين بابيي وأنا تقول كجارتينا كفعنا ولو ما المدوية المغلي عقاش الرير بري ويريان حلكي كقاضيان هدود ديدنا برلمان كل منيان صدق دقة هنا قاعد تاقلوا قاضية والله وبالله وطلع الله بس أنا قدام بهدود هاي أنا قبر إذيك سهرين وايو isaga jeebkiisa wax ku jiraan cid kale jeebkeeda inay wax soo galaan uma baahna waxa fiican inaad ka raacdaysaan alwaaxdii awal uu gudi jir baqarka alwaaxda uu gudi jir hasiga laabtee gow ma faananay aniga reer Boosaaso mihi saaxiibo badan aan ku leeyahay waxa kale oo ogahay meesha la yiraahdo Laas Qoray iyo tuulo iyo degmo yar ku dhow wadanka Soomaaliya oo dhan horta ka soo qabo degmo aan saldhig boolis leh waxa laga helaa bari gobolka bari laga helayaa sababta maxay tahay saldhig boolis maxaa loo dhisaa waa inuu tuug jiro waa inuu dilay jiro Soomaha wixii ay soo qabtaan ha dadka subax kalluumaysi wada aadan iyo shaqadooda danahooda casarka markay ka yimaadaan waxooda kala xareystaan guryahooda nabad ku joogan bini'aadanku isdili kara gacantooda dhaxmari karta labadii qof oo isqabsad markiiba waxa imaanaya odayaashooda caqaashooda la maslaxay arrintood meeshaas lagu dhameynaya degmo dhan oo aan boolis lahayn oo waxba lahayn oo nabad ah meesha laga helo waa gobolka bari waad ila fahamteen baan malaynaya dad nabadeed baatiin ma filayn aniga waa cadda muusan soo arkay faroolan soo arkay aan soo arkay ninkii dambe Cabdiweel gaas noocan inuu idin soo maraa I cannot believe maba aaminsan noocan inuu idin soo maray laftiina sixir baa idin soo gaaray malaynaya gowdhaha quraan akhristay ama qof waa ka sabartaan kan dhagta qabtay badda ku tuuro kana asbuuc dambe idin soo hor istaagin hadda rabtaan waa diidi kartaan doorashada hadda rabtaan waa gali kartaan qabaa'il dhan oo Soomaali ah oo xor ah oo gob ahtiin ka xuna gunka ah dadka uu ka dhashay waxba kama sheegay aad iyo aad bay u fiican yihiin fahamt laakiin sumxaaya habar dhashay way sumxaayana dad ma noqdo waxna idin tarmaayo jeebkiisa uu eegayaa hadday wax ku jiraan cid kale oo baahan inay jirto ma aaminsana waa ninka cunqabatayn ku soo rogay ganacsiga waa ninka cashuuraha lacag ku soo rogay dheeri ku soo rogay waa ninkii shilinka Puntland ma shaqayn karo ma fahamtay oo yiri dollar ha lagu shaqeeyo ma anaga misid banahay
sidmiyana markaana dhibic hal iyo dhibic laba iyo dhibic shan wax ku gadanayno ma aha in laga yeelo ma aha dad waaweyn oo waxgarad ah oo xog ogaal ah oo aad u kulul oo damiir fiican ayaa gobolka bari ka soo jeedaan iska qabta aniga taasaan leeyahay waxaa kuu soo heray ninka axmed madoobe ah kabtiisaaba lagu taagan yahay waa caddaystay dhulka soomaaliyeed oo la gatay waxaaba ugu sii daran wuxuu taagan yahayba kismaayayba kenya leedahay kismaayo kenya hadday leedahay waxaas yidhi xagla gel guntumo laguma qarsho kismaayo kenya hadday leedahay bal ninuu macawis xira soo laabay laba lugood oo geel geli wax walba qarsoomayaan ma qarsoomayaan bannaanka yaalan cagla kismaayo iska daa dhibkoo dhan ma aha kismaayaan leeyahay iyo badaan kulu leeyahay iyo maaha boosaa meesha la yidhaahda waqooyi bari kenya weli ana xaggayga way ka liitaan sababtoo hadda haddii mar hore jabhad abuuraana u yidhahdaan annaga soomaali baan nahay shanta soomaaliyaan ka mid nahay shanta soomaaliyeed way wada xuroobeen badi annagaa dhiman xorriyaddeenna na sii ingiriis isaaq ingiriis xorriyadoo ka qaateen 1960 26 June wuxuu ka qaatay xorriyaddiisii kowdii luulyo isagoo socdoo xamar yimid kalgacayl walaalnimo haaye aniga waan soo qaatay kowdii luulyana annagana waxaan ka qaadannay talyaani waan isu nimid xamaraan isugu nimid waan fariisannay naqshad baan degnay calan baan samaysannay waa midownay walow markii hadda maxamed siyaad la bixi xoogaa xumaan badan ay iska timid oo is-eedayn timid oo waa kala go'aynay waa isku juraynay waxyaabo badan ay socdaan taasina meeshay doontaa gaarto wax weyn maaha waxaa ku xigtay jabuuti gebigeed inay 2 milyan dhantahay ma aaminsanana waa in yaroo carra lagu shubo dhul weynba maaha ma fahamtay waan la gurmanay xog ogaalaa ka tihin waa la dagaalanay dad badan baa dowladdii soomaaliyeed ugu baaba'ay dad hoos ka gelis iyo dad toos u galayba xorriyaddoodii qaateen jabuuti maanu qasabnay calan waxay soo saartaan green and blue oo gadaal weydka oo xidigna ku leh buluuggu marka muxuu matalayaa inuu soomaali yahay greenkana waa astaan ay u gooni ah iyo caddaanka dambe oo xidigta leh waqooyi bariyey haddaad xorriyad raadisaan oo aan idinla safarno oo aan idinla qabanno ood xorriyaddiinna qaadatiin muqdisho aad moodaysaa in laydinku qasbaya may calankaad doontaa qaadanaysaa laakiin sharuud waxaa unbaa ku astaan soomaaliyeed qaybta astaan soomaaliyeed inaad aad kor ugu samaynaysa calankaas intaas unbaa sharuud ku cid ku qasbays male jabuuti yaa qasba waa dowlad xor ah adaaba ka badanba hadda dhulkood haysad fiiri mombasa ilaa waqooyi bari kenya nimanka la yidhaha kenyaatiga maxaa u haraya bal ii sheeg hadda markii soomaali xorriyad ka qaadato maxaa u haraya cirkunba wax loogu keenayaa mombaasana soomaali baa iskale waxaad fahamteen soo maaha marka qofaan dadaalin horumar ma gaara midda kale waxaa ogaataan qofka haddii uu kufo inuu joogsan karo adoo socdaad lugahaas ku dhufanaysaa kufaysaa haddaad kufto wax ogow inaad joogsan karto lama baraq jabo 2 nin oo xildhibaana laydinkugu darayaa aqalkan xun oo kenyaatiga deetana waa qanacsantiinba saasaa ku qanacsantiin habeen dhawet muxuu lahaa aniga lama dagaalayo soomaaliya isdagaalahays waa runtiis waqooyi bari oo dhan kenya waa soomaali buulaxa ina waxayaan waa soomaali 2 soomaaliya dagaalo haysa waaye ayagaa isku dhex jiro maxaa heerkaas ku gaarsiiyey annaga talyaani iyo ingiriis iyo faransiis aanba xorriyaddii ka soo qaadnaya ma addoonkan gafuurka weyn leh astaqfirullah alcadiim ilaahi waa mitaan gafuurkiisa yaanan ku gafinay addoonkan addoonku dhalay oo inuu uhuura ah iyo dadkiisa ooba mar hore inaan annaga qaqabanno oy noo adeegaanoo gumaysanno noogula tala galay yaa ayagana gumaysanaya raalli baanu ku tihin soo maaha wallaahi arrintaas haddaadan jawaab ka bixinin dadnimadiinna meel dambe oo lagu xisaabi doono ma jirto rag badanaa aqaanana meesha ka mid faarax macallin baa ka mid dad badan oo aan aqaanaa ka mid kilinka waqooyi bari kenya
laakiin waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa in xataa ciidamo idinka maleeshiyaad idinka mid oo la tababaraya Kenya tababaranayso dagaalku ay ku qasbeen inay galaan laleewa arkay kuwaas laftooda masaabiir hoosta loogu wada kawan karaa ayagoo qowda maqashay waxna oo qabanana kuwana dowladdan istusaya howshiinana wata marka taasi waa tii aflagaadada xale oo ku hadlayay ninka la yiraahdo Dani iyo waqooyi barkiin aan ka keenay jimcihii la soo mooday wacdara dhacay rag waxay ku wanaagsan yihiin inay hadlaan meediyaha ka hadlaan ay ka booteeyaan ay meel walba isku dayaan thumma wallahi dooda iska gurana inay banaanka soo baxaan ma ahayn wallaahi bannaan bixi ceebtay lama arkaanka eeda ka dhacday adduunku way u dacwoodeen waxay yiraahdeen dad rayd ah oo xur ah oo dastuurka qoraya inay bannaan baxaana yaa la xabaday oo la baabi'iyey dastuurku waa qoraya waa runta inaad bannaan baxdo xur baa u tahay laakiin dastuurku muxuu xur kaaga dhigay taangiyo iyo baabuuro gaashaaman iyo dabajeexyo iyo sabanno adoo wato ciidan wata dadweynaha ciidanka iyo teknikada madaxtooyada inay 190 mitir u soo gaaraan cidkaa yeelaysa ma leh cidkaa aqli yarna ma leh xabaddana idinkaa bilaabay aad bilowdiina markii saal idinkugu shabina wixii ka dhacay cid loo sheegaayo ma jirto nin walba Facebook iyo meel walba waa ka arkay ninka kabta lambarkeeda 40 iyo guduudka ka orday kan kufayo jilbaha ka dilaacay kuwa guryaha garaacayo lahay war ma yuhuud baa tiin guryaha naga furo war ma nin la eriyanayo yaa nin nabad ku jir gurigiisa u furaya soo galaya hadaa banaanka tago wax raadsadee iska celi ragaad soo aaday askartaad wadatay oo kuwa dabajeexade dhunta qabto jiiday dhulka kula ordaya baabuurti wixii oo dhan dumarka waad lugoysaan ummadda been looma sheego 91 ka soo baxnay filinkaas waa waray reer hebeley goormay ahayd mar labaad masiix shoonaysan waxaad taagantiin jimcaha soo socdaan mid kala qabanaynaa isdaba joogo ma dhaafayno nin dambe oo idin imaaday mala ceebtiina xalay ugu dambeysay dhalinyaradii banaanbax idin dhigta xalay waxay sameeyeen waad maqlaysaan $4 ku leeshiisa $4 ninka taxi raaca ka go'ay nin Soomaali walaalkiis jid markuu gorimaado yiraahdo war ma haysa taxigaaga go'ay ma xaafadina way ugu fogtahay $5 $6 loo tuuraa $4 banaanbax uu soo waday dad ku soo ballan qaaday afartina waad kala dhuumateen xal afkooda ku cadeynayeen aniga idin been idin kama sheegayo dib dambe wax idin aamina horta idin soo raacay ma leh mid kale waxaan maqlay inta mucaaradka ah way shireeno nin walba laftiisa uu ka dhashay 30 nin ha ka keenaa leeyahay 30 sheegay boqol hadaad keentiin xamar uma babacdhigi kartiin koow waxa ciidan joogaad aragteen iyo waxa hadda lagu soo daldalay dawladana waqtigeeda hadduu dhamaaday ilaa hadda weli ma dhicin way soo taagan tahay oo waxaysan u dhicin dawladdu waxay dhacdaan markii doorasho ay dhacdo madaxweynaha laga bedelo madaxweyne kale uu qabto markaas isbedel madaxweyne u yimaada doorashaba lama qaban waana la qaban la'yahay idinkaana diidane waa dhacay meesha ka bax markaa leediin ma aha guri aad idinka leediin maaha haddiiba ay dhacdo xataa kaba soo qabo horta bahasha mamlakada la yiraahdo ilaah baa bixiyay bini aadan bixiyay shariifo maalintaad soo fuulaysi waxaad ku jirtay muqaawamada qoladii hogaaminayso Itoobiya waa baabinayna oo raacdayn laad ka mid ahayd markii dambana diinti aad muqaawamada ku wada tijaabka aad gashatay madaxweynenimo lagu qalqaalay Kenya tagtay oo lagu soo dhameeyay oo soo fuushay waa saamsantahay Soomaa inta ilaahay ku qori waad ahayd waqtiga kugu dhamaaday hadduu ku dhamaado ilaahay soo kuma kordhi karin kuma kordhin saacadaada meesha ku gaad ilaahay ba ka dhigayba maca dalika xasan sheekh sidoo kale inta gacan dheer markii la soo sawiray sawirada uu boor soo dhigsanay gacan dheer badan iyo af uu kala haya oo qosol badan oo meesha noogu dhigay nacayb iyo jacayl uma qabanana ma aqoonin laakiin waxaan ogaanay in ilaahay uu mamlakada soo qoray wuxuu dhici karo wuxuu xadi karo wuxuu sameyn karo birimo boos iyo waxba lagu xusheeshaa wax alla wuxuu rabaa sameeyo the time is over waqtiga ka dhamaaday
shariif hal sanad ku darsatay oo dib soo habayn iyo inta doorasho dib u dhacayso hal sana ay ku darsatay hal qof oo xamarka dhex boodboodaya ama garow ka boodboodaya ama jubbaland ka boodbooday ma aragtay oo lagu madari kar maalin lagu madari kar oo buuqa mudaaharad wax sameynaya ma jiro waa may xas sheekh 6 bilood asna xoogaa dib u dhac ku dhacay wax boodbooday ma jiro may haddaba qabyaaladda idinka badato inay qabyaaladda idinka badato waxaan idinku cadaynayaa maxaa kan one day inuu ku daro ama loo sugo intuu ku soo magacaabaya ama laga ogolaado intuu ka magacaabo maxaa isugu laadiin hanoo banneeya markaa leediin meesha meelaad idinka leediin maaha mamlaka waaye ilaah baa bixiya deeqdeeda ilaah baa fidiya ma aha meelaad idinka leediin haddaad ku burburteen shalaad arag xumaydeen jimciyaad orod xumaydeen mid kale dadka inaad isugu yeertiin ummadda ha ku baabanina wallaahi oo billaah hadda runta aan isu sheegnay soomaaliya intii maalintii jimcaha ku dhaawacantay ama ku dhimatay bannaanbixi mas-uuliyiintii aad u bannaanbaxayseen nin ka mid ah oo idin yimid oo tacsiya idinkaan ma jiraa reeraha ay ka dhinteen nimankaas may kuwii ka dhaawacmeen nin isbitaal idinkugu yimid ku jira may jaranjaraatiin derbiyada laydinku fuulaa yaan derbi laydinku fuulin waad soo daashan soomaaliyatiin xamaraad leedihiin soomaaliyaad leedihiin magaaladaada saacaddaad rabto 9 saac habeenimo soco maqrib soco galab soco subax soco xorriyadaad tahay reer xamarka waxay yidhahaan ninkii hooyaday guursado adeerkay annaga ninkii kursigaas fuula adeerkan ahe raggan tartamayo iimaanka ka tegay oo inay waddanka dhacaan ku soo wada heshiiyey inaan u sacabtunno yaan jaranjaranno wala fuulno xabad ayaga loo wada annaga aynagu dhicin aniga dhibaatada qofka bini'aadanka ah oo Soomaaliyeed la soo qaldaayo bannaanbax loo soo waday ku dhacaysa aad iyo aad ay dhibaysaa waayo waxaan ka mid ahaa jiray liibaanayaasha lagu liibaano dadka meelaha loo adeegsada xataa ka mid ahaa jiray laakiin mid ma lagu korayo ka ilbaxay fahamteen arrintaas waxaan jeclaa lahaa inaad ka ilbaxdiina waan idin salaamayaa waa waqtiga igu sii culus meel kale aan sii socdaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh